daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ma ogtahay. barnaamijkan waxaanu idinkugu soo gudbinaa macluumaadka dunida, waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhaca, goobaha ay ka dhacaan iyo dadka ay khuseeyaan intaba, inagoo ka soo xiganayna warbaahinta dunida oo dhan. haddaba daawadayaal, barnaamijkan hadduu kugu cusub yahay, fadlan page-keena follow garee, like saar, kadibna u share garee saaxiibada si barnaamijkan iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay uu u gaaro inta kale. haddii aad naga daawanayso YouTube-kana, fadlan subscribe noo saar, kadibna u share garee saaxiibada. waa mar kale iyo barnaamijkeena ma ogtahay. ma ogtahay daawade in la soo saaray sanadkan 2022 qiimeynta baasaboorada adduunka sida ay u kala awood badan yihiin iyo dalalka sida ay u kala qiimo badan yihiin. mase ogtahay hay-adan baaritaanka ku sameysa baasaboorada inay soo dhigtay boggeeda qaabka kala horeynta, iyadoo qiimeyntu ay socotay 2006 ilaa 2022. waxa ay sheegtay in kaalinta koowaad ay galeen dadka waddanka Japan ee baasaboorkooda wata, kuwaasoo la sheegay inay adduunyada tegayaan 193 dowladood oo markaa fiisa la'aan. taas ayay Japan ku noqotay kaalinta koowaad. mase ogtahay warbixintu inay sheegtay wadamada Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed in ay galeen kaalinta labaad, waxaana la sheegay in dadkoodu baasaboorada ay sitaan ay ku tegi karaan ilaa 192 dowladood fiisa la'aan. mase ogtahay kaalinta saddexaad inay galeen wadamada Jarmalka iyo Spain. mase ogtahay waddanka Faransiiska inuu u dhacay kaalinta shanaad, isagoo markii hore ka mid ahaa wadamada ugu horeeya. mase ogtahay waddanka isna kaalinta shanaad kula jira inuu yahay waddanka Ingiriiska. mase ogtahay waddanka Mareykanka inuu u dhacay kaalinta 6, iyadoo baasaboorka Mareykanka qofka sitaa uu tegi karo kaliya 186 dowladood. haddaba qiimeyntan ayaa la sheegay in la soo saaro dhowrkii sanaba mar. Japan ayaa iminka waxay noqonaysaa waddankii markaasi ugu horeeyay baasaboorada ugu wanaagsan dunida. dhinaca kale waxaa la sheegay in Ukraine ay ka hormartay Ruushka, maadaama Ruushka cilaaqadiisa ama xiriirka uu la leeyahay dalal badan oo Yurub u badan in markaa aanu wanaagsanayn, sidaa daraadeedna baasabooradiisa dadka wataa aad loogu adkaynayo. saas darteed dhanka kale waxaa loo furay baasaboorada Ukraine dadka wata wadamo markii hore aanay tegi jirin dadka reer Ukraine, iyagoo markaa aan fiiso wadanin, balse hadda loo furay isticmaalka fiisahooda. ma ogtahay daawade in waddanka Bangladesh dhibaato badan oo ka taagneyd in muddo ah iminka ay u muuqato in la soo afjarayo. mase ogtahay tareenada dadka qaada in si xad dhaaf ah dadka ay ugu raraan markii tareenka uu buuxsamo gudaha ilaa dariishadaha ilaa dusha sare ee tareenka in dad badan ay fuulaan. ma ogtahay ku-xigeenka dacwad oogaha waddanka Bangladesh inuu sheegay laga bilaabo maantay in hadda kadib tareen sidaas oo kale ah aan loo fuuli doonin
wuxuuna digniin siiyey dadka isticmaala tareenada iyo shirkadaha iyagu isticmaala ama dadka qaada ee tareenada iska leh. mase ogtahay arrintan inay sababtay kadib markii la sheegay in musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dadka daabula ee tareenada iyo basaska waddankaas darteed in ay kaafin kari waayeen tirada dadka baaxadda leh ee doonaya inay raacaan tareenka iyo baska, taasoo keentay in qof walba uu meesha uu soo gaaro lugta ka gashado tareenka. sidoo kale waxa ay noqotay sheekada waddanka Bangladesh mid markaasi dad badan oo dunida ku nool ay aad ula yaabeen. waxaa in badan oo ka mid ah sheekooyinkan qaabka loo raaco tareenada waddanka Bangladesh wax ka qoray warbaahinta dunida iyagoo ku tilmaamay tareenka khatarta ah ee dhimashada. daawadayaal barnaamijkii ma ogtahay oo aanu mar walba idinkugu soo gudbino macluumaad kala duwan oo ku saabsan waxyaabaha la yaab kale ee dunidan aynu ku noolnahay ka dhaca xilligan waa naga intaa. haddii aad nagala socotid facebookeena page-ka aanu ku leenahay Nadaara Show, waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan noo share garayso. haddii aad nagala socoto YouTube-kana waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan share garayso oo aad subscribe noo saarto. inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.